وزير الدولة وزارة arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliland Professor Maxamed Mixile Boqorre ahna kusimaha wasiirka ayaa qaabilay mas'uul ka socday shirkad laga leeyahay dalka China taasoo ujeedada ay u yimaadeen dalka Thailand inay maalgashi ku sameeyaan dhinacyada khayraadka dihiin dalku leeyahay gaar ahaan dhinaca macdanta iyo inay horumarin ku sameeyaan adeegyada bulshada gaar ahaan caafimaadka iyo hawlaha guud kulanka soo dhamaaday waxa warbixin kooban ka siiyay warbaahinta wasiir Mixile wuxuu ka waramay ahmiyadda uu leeyahay kulankani iyo imaanshiyaha ufuuda daba imanaysa iyo maalgashiga ay daneynayaan Soomaaliland halkan waxa lagu soo siyaartay maanta in nin raba inuu maalgashado wadankeena Mr. Tony oo nimankii reer China ee baasha yaqaanay marka wuxuu doonayaa inuu maalgashi dalka ku sameeyo wuxuu doonayaa xagga macdanta iyo energy-ga iyo hawlaha guud oo yadnaha waanu geyn doonaa caafimaadka iyagana waanu geyn doonaa waxbuu rabaa inuu la qabto waxa kale oo doonaya inuu wax aad ka qabto maqaraysaa qolada lacagta laftigeega wuxuu hayaa qalab sida dhulka hadii loo mariyo waxa la wixii lacag dhulka jiray oo custom management systemka oo qalab caynkaas uu rabaa inuu ka saboor gareeyo marka isaga laftigiisu marka waa maalgashi laakiin de waxa weeyaan alaabtaas uu hayaa markaas qolo walba oo la kulmi doona hadii la yiraahdo marka sidaas aan yeelayna hadii la yiraahdo maalgashi marba marka dambayso Soomaaliland iska daba dhacaya waxa la yiri kolku khayrku soo socdo waxa lagu gartaa wax walba yani maal saasa la iska daba dhacaya marka in dalka maalgashu doonaya meelaha concernka ku ah shaqada inuu hayo concernka ku waxa weeyaan wasaaradda maaliyadda macdanta tamarta caafimaadka hawlaha guud waxaan jecelahay in qolo walba soo marino oo ballamina hadii ilaahay yiraahdo marka ilaa bis jimcuhu la joogay hadii ilaahay wasaaradahana waan marin doonaa hadii ilaahay